gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sadiq Xaaji Faarax oo qaar kamid ah warbaahinta kula hadlay xafiiska maxkamadda gobolka ayaa faahfaahin ka bixiyay safar qaatay toddobaad maxkamadda wareegtay gobolka Sanaag ay ku soo martay deegaanada waqooyiga iyo galbeedka dhinaca xeebaha gobolka Sanaag gaar ahaan deegaanada degmada Meydlaas Muusiya Kaliya Waqal iyo deegaanada Buuraleyda ay caanka ku tahay beeyada gaar ahaan deegaanka Ceeldibir iyo waliba degmooyinka dhinaca galbeedka gaar ahaan degmooyinka Garaadag iyo Ceelaf Weyn waxaana gudoomiyuhu sheegay in deegaanada qaar aanay gaadhin cadaaladu isla markaana ay kiisas ay ka soo fuliyeen waxaana gudoomiyaha Cali Sadiq Xaaji Faarax oo arrimahaasi arrimo kale ka hadlay hadaladiisii kamid ah sidatan safar dheer oo 7 casho ku dhawaad qaatay ayaanu ugu baxnay mobile court 5 kiis baan ku soo qaadnay xagga maxay haytooyeen xeebaha waxaanu ka bilownay dacwadaha waxaanu ka bilownay meesha degmada Mayd baanu ka bilownay dabadna saasoo socono maxay tahay laas muuse meel la yiraahdo iyo kala waqar meel la yiraahdaan ka soo dhacnay dhulkaasaanu marnay xeebaha soo dhan baanu yaanu baxnay markii dambana waxa weeyaan waxaanu ka soo badgalnay meesha la yiraahdo beeyooyinka la isku hayeen Ceeldibir ayuu nimi marka dacwadahaas baanu ku soo qaadnay 5 dacwadood bay hayeen ayaan ku soo galnay oo beeyooyinka qaarkood 3 dacwadood ay beeyada tahay 3 dacwadood waxay hayeen kuwa beeyada laba dacwadood kale waan ku soo qaadnay markii dambana degmooyinka Garaadag iyo Ceelaf Weyn baanu nimi oo iyagana aan ku soo qaadnay 5 dacwadood oo kale aan ku soo galnay marka 10 dacwadood baanu ku soo qaadnay intii aanu hadeer safarka ku jirnay oo intooda badani ay soo dhamaadeen waxa weeyaan dadka xafaan way qaadan karaan laakiin si waxa weeyaan dacwadahan soo dhamaynay hadda dacwooyinka beeyaha qaar waanu dhamaynay qaar way noo harsan yihiin oo waxa weeyaan bisha March ayaanu dadana dib ugu noqonaynaa waxaana gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag Cali Sadiq Xaaji Faarax oo sidoo kale u mahadceliyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland barnaamijka maxay haytay mobile courtiga waxaan uga mahadcelinayaa maxay haytay cidii maxay haytay soo aliftay marka hore waa barnaamij aad iyo aad maxay haytay dadku ay uga reysteen dhibaato badan oo ay u mari lahaayeen xagga cadaaladda waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo guddiga cadaaladda deegaanada waxaana adeegan dhinaca cadaaladda ay maxkamadda gobolka Sanaag ay deegaanadaas fog ay ka hirgelisay ay si weyn u soo dhaweeyay dadka deegaanadaasi waa u baahanahay dawlad baanu baahanahay maxkamad baanu baahanahay wax allaale wixii sharciga baanu baahanahay wax yimaado oo dawladda nin doonaya nin gacan ku dhiiglaan ma ahaan nin kale ma soo gelin in naloo soo balaariyo hawsha maalin walba naloo yimaado 300 kilomitir ayaanu ilaa Ceergaabo u jiraa 300 kilomitir gudoomiyaha maxkamadda gobolka Sanaag iyo booliska uu wato waxaanu leenahay waa maalintii koobaad ee horta heer dawladeed bano aad iyo aad baanu horta ugu mahadcelinaynaa Ali Aadan Daahir telefishinka caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.